Waa goorma waqtiga ugu fiican ee aad aadi karto gym-ka haddii aad rabto inaad murqo dhisato. Intaan ku guda jiro muuqaalkan waxaan ku qaadi doonaa waqtiga ugu fiican, cunnooyinka laga rabo inaad cunto, sida uu murqa u korayo, iyo talooyin caafimaad oo la xiriira dhanka murqa dhisidda. Assalaamu calaykum, ku soo dhawow muuqaal cusub. Waa mar kale iyo Somali Fit. Muuqaalka maantay waa goorma waqtigee ama xilliga ugu fiican aan aadi karo gym-ka haddii aan rabo inaan murqo dhiso. Way ka duwan tahay markaad miisaankaaga dhimayso ama exercise nooc kale aad sameynayso. Muuqaalkan muuqaal xiriir ay leeyihiin hadda ka hor aan soo geliyay ayaa jira oo aan uga hadlayay 4 qodob oo asaas u ah murqo dhisidda. Muuqaalkaas oo dhammaystiran waxay ka helaysaa description-ka linkiyadooda. waa su'aal muhiim ah, waqtigee ugu fiican aad gym-ka aadi kartaa si aad u hesho isbeddel wax ku ool ah. Waxay u baahan tahay tani inaad fahanto wax uu jirkaagu u baahan yahay iyo inaad ka fogaato isbeddel la'aan iyo inay waqti badan kugu qaadato inaad gaarto. Waqtiga ugu fiican oo aad wax walba qaban karto waa marka adigu diyaarka u tahay. Dadka inta badan subaxii bay gym-ka aadaan ama habeenkii ama isbuucii 2 ilaa 1 ama bishii mar ama xilliga waqti u helaan. balse waxa ugu muhiimsan mar walba waa jaanis u hesho inaad leedahay jadwal aad ku aadayso gym-kaaga si aad u hesho waxaad aad rabto. balse waqtiga ugu macquulsan ee aad la isku raacsan yahay adduunka ee aad aadi karto waxaa ka horreeya inaad 3 qodob isla fahanno. Qodobka koowaad lagaa rabo oo ka horreeya waa inaa hormoonkaagu xoogan yahay. Tan koowaad. Qodobka labaad waa inaad si fiican wax u cuntaa. Qodobkani aad ayuu muhiim u yahay. Cunnada ayaa ku siinaysa murqaha aad rabto. Haddii maalintii dhan aad exercise ku jirtid ama jimicsanaysid, habeenkii oo dhan aad hurudid ama maalintii inta kaaga hadha dhan aad iska nasatid, ama aad isticmaasho steroid ama dawooyinka murqaha kordhiya adigoon wax cunin, marnaba ma yeelanaysid wax murqaha. Aad ayay u adag tahay. sidaas darteed cunnada ayaa muhiim u ah mar walba. Marka waxaad u baahan tahay inaad cunto 1 cunno oo tayo fiican ilaa 2 ilaa 3 cunno. Waa inaad cuntaa ka hor iyo kadibba gym-ka markaa. Cunnadaasi waxaa isticmaalaya murqahaaga si ay uga helaan tamar noocyadii cunno aad cuntay oo ahaa proteiniska, carbohydrateska ama faatka ama duxda, si ay u koraan awoodna uga helaan ay biraha culus ku qaadaan murqahaagu. Markaad gym-ka joogto aad biraha qaadayso, murqahaaga culays badan bay qaadayaan, dhaawacyo badan baa soo gaaraya. Waxay u baahan yihiin waxay quutaan si ay u koraan. Waxayna quudanayaan cunnada aad cuntay ama aad isticmaalayso. Sidoo kale ha ku aadin gym-ka aroortii adigoon wax cunin ama hamuuman. Waxaad gubaysaa murqahaaga si dib looga helo tamar uu jirkaagu isticmaalo xilliga aad gym-ka ku jirto oo aad biraha qaadayso halkii la rabay inay koraan murqahaaga. Sidaasi ayay ku baaba'ayaan murqahaaga si ayra ka hor inta tamarta ama duxda aan loo isticmaalin tamar ahaan. Halkaa waxaa ku baaba'aya murqahaaga proteiniskii ay ku dhisnaayeen. Taasi way ka duwan tahay marka aad sameynayso cardiovascular exercise ama miisaankaaga aad dhimayso. Exercise-yada miisaanka lagu dhimo aad sameynayso adigoo hamuuman ayaad aroortii gym-ka aadi kartaa ama jimicsan kartaa. Muuqaal dambe ayaan uga hadli doonaa miisaan dhimista iyo sida loo sameeyo. Markaad gym-ka ka timaado waxaad cunaysaa 2 cunno ilaa 3 cunno oo tayo fiican. Taasi micnaheedu waxa weeye habeenkii xilli dambe ha aadin gym ama ha jimicsan kadibna ha seexan. Hadda waxaan ku siin xilliyo fiican ama xilliyo macquul ah aad aadi karto gym-ka. Waxaa kow ka ah duhurkii. Waxaad cunaysaa 3 cunno ka hor inta gym-kaada aadin oo cunno 3 cunno fiican ama waxa soo cuntay duhurka, quraacdii iyo barqadii iyo qadadii. Kadibna 3 cunno kale maalintaas oo dhan cun. Habkani waa habka ugu fiican balse aad bay u adagtahay in la sameeyo sababtoo ah shaqaa la leeyahay, iskuul baa la leeyahay. Aad bay u adag tahay balse waa habka ugu fiican ama xilliga ugu fiican iyo habka ugu fiican aad ku heli karto murqo si degdeg ah. Xilliga labaad
waa aroortii. Hal quraac oo tayo fiican cun, kadib waxaad aadaa gymkaaga, kadib markaa ka timaado haddana maalintaas oo dhan wax cun. Jimicsiga aroortii aad ayuu u fiican yahay sababtoo ah waxaad noqonaysaa energized, waxaa gubaysaa tamar badan oo kuu kaydsaneed, maalintaaduna waxay noqonaysaa mid aad u firfircoon oo wax badan aad qaban karto adigoon ka caajisin. Waqtiga saddexaad waa habeenkii. Habeenkii aad ayuu macquul u yahay sababtoo ah waa xilliga ugu fiican oo jaaniska la hayo. Habeenkii markaad ka timaado shaqada waxaad cuntaa hal cunno, kadib gymka aad. Markaa kasoo baxdo cun hal cunno oo culus, kadib ay ku jiraan dhammaan macdanihii laga heli jiray cunnada ay ka kooban tahay carbohydrate, proteinka iyo duxdiiba. Jimicsiga habeenkii wuxuu kor u qaadaa heerkulka jirka iyo cortisolka levelkeeda. Cortisol levelka wuxuu kor usii kacayaa mar walba adigoo haddaad sii gaajaysanaatid markaad gymka ka timaadid. Tani waxay kicinaysaa dhammaan neerfayaashii maskaxda oo waxay ka dhigaysaa in hurdada aysan si fudud kaaga imaan, ay adkaato inay kaa soo dhacdo hurdada. Balse xal waxa uu ah haddii aad wax cunto ka hor iyo kadibba gymka 2 saac ka bacdi waa seexan kartaa si fudud. Sidoo kale haddii aad sooman tahay waxaan kugula talin lahaa sidaas oo kale, hal cunno oo weyn ku afur, gymka aad, kadibna hal cunno oo weyn cun. Hadda waa heshay waqtiyo badan aad gymka aadi karto haddii aad rabto inaad murqo yeelato. Balse waxaa bilowgii soo sheegay asaaska murqo dhisidda inay ku xiran tahay geneticska oo ku xiran hormoneska. Waana sababta dumarka aysan marnaba u yeelan karin murqaha ragga ama aysan u dhisan karin sida rag oo kale. Iyo waa sababta ragga kontonka ka weyn aysan marnaba ugu muuqan siday 20 jirkoodii u ahaayeen ama ay u fududayd inay murqo u dhistaan. Marka waa inaad mar walba xoojisaa hormoonkaaga si dabiici ah adigoo aan dawo isticmaalin da' walba aad jirtid. Hormoonkaasina waxaa loo yaqaanaa testosterone ama hormoonka ragnimada. Waa haddii uusan xoogganayn aad ayay u adag tahay inaad marnaba murqo ay yeelato. Sidoo kale waxaad samaysaa mar walba kor u qaad hormooniska wax dhisa sida testosterone, insulin growth-like factor, growth peptide iyo growth hormone, iyo inaad yareyso hormooniska wax burburiya sida cortisol, adrenal iyo glucagon. Sababta aan idinku sheegay qodobkani waa inaad wax cuntaa ka hor iyo kadibba gymka. Tani waxay manage gareynaysaa insulinta dhiigga ama ay kor u qaadaysaa. Insulintu kaliya 2 shaqay qabanaysaa, inay muruqa kuu dhisto iyo inay ka hortagto hormooniska wax burburinaya murqaha ama soo burburinaya murqa. Okay, gymka ka hor waxaad cunaysaa carbohydrate, protein iyo xoogaa duxa. Markaa cunto waxaa kor u kacaya sonkorta dhiigga iyo insulinta. Markaa muruqaagu wuxuu helayaa waxa uu quuto si uu shaqo culus u qabto. Kadib gymka aad, soo jimicso, kadib birahaaga soo qaad. Kadib markaa ka soo baxdo haddana waxaad cunaysaa mar labaad cunno kale. Cunnadaas oo ka kooban sidii hore oo kale carbohydrate iyo protein iyo xoogaa duxa. Markan waxaa kor u kacaya sonkortii dhiigga mar labaad iyo insulintii. Intaba hadda mar labaad waxaa la quudinayaa murqihii oo nasanaya si ay u koraan. Sidoo kale insulintu ma aha kaliya inay murqa koriso, waxay ka hortagaysaa cortisol levelka inay kor u kacdo. Cortisolka oo ah murqa inuu soo burburiyo ama hormooniska wax soo burburiyo inuu ka mid yahay asaga iyo glucagonka. Marka ma ahan kaliya inaad muruqa dhisto, balse waa inaad iska ilaaliso inuu muruqaagu baaba'o. Tusaale ahaan waa inaad mar walba kobcisaa tayada wax soo saarkaaga si uu kobocaagu u bato. Micnaheedu ay tahay mar walba ku dadaal sidaad muruqa u dhisi lahayd iyo dadaal walba u gali lahayd. Iskana ilaali hormooniska wax burburinaya oo muruqii soo burburin lahaa. Haddii kale waxaa kugu dhacaysa inaad 2 kg oo culeysa ama 5 pound oo kale ay kugu siyaadaan, kadibna isla markiiba 5 pound ay kaa dhacaan ama 2 kg, taasoo ku dhamaysatid wax bilaa progress ah. Haddii insulinta hoos u dhacdo, waxa kor u kacaya cortisol levelka. Cortisol levelka haddii kor u kaco, waxaa hoos u dhacaya testosteronka. Testosteronka hadduu hoos u dhacona marnaba ma yeelanaysid wax murqa ah, aad ayuu adkaanaysaa. Haddii uu yar yahay hormoonkaaga, waxaa isticmaali kartaa dawooyin xoojiya testosteronka oo loo yaqaan testosterone booster.
testosterone booster keliya murqaha kuma siinayso balse waxay ku siinaysaa oo dheeriya inay himada iyo dareenka ragnimo kor u qaado. taasna waa faa'iido kale labaad. haddii aad muuqaalkan ka heshay, aad wax badan ka faa'iiday, aad ka fahantay, share u dheh asxaabtaada, like saar, subscribe dheh, gambaleelkana furo si aad ula socoto mar walba aan wax soo gelino isla markiiba. sidoo kale haddii aad su-aal qabto waa ina soo weydiin kartaa commentiga, nagu soo qori kartaa, kaaga soo jawaabinaa. waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. farxad iyo caafimaad. asalaamu calaykum.